ibrahim jaamac samatar oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland oo maanta shir shiraa'id ku qabtay gurigiisa ayaa sheegay isla markaasina taageero ballaaran u jeediyay xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo baaqay maanta shirkaasi shiraa'id ka soo saaray Sultan Ibrahim Jaamac Samatar ku sheegay in salaadiinta gobolada galbeedka Soomaaliland ay si buuxda u taageerayaan in laga qayb galo shirka lagu qaban doono dalka London ee dalka Ingiriiska isla markaasina Soomaaliland lagu marti qaaday isagoo sidoo kale sultaankuna u diray baaqnadeed dadka colaadda ku dhex martay deegaanka Bohole isagoo sheegay in ciidanka Soomaaliland ay markastaba u taagan yihiin waajibaadka nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo arrimahaasi ka hadlayay waxa yiri qaranka iyo maamulka Soomaaliland xukuumadda shirkaasi in loo baahan yahay in laga qayb galo sidoo kale Sultan Ibrahim Jaamac Samatar waxa intaasi ku daray in guud ahaan loo baahan yahay shacbiga Soomaaliland meel ku soo wada jeedsadaan horumarka iyo xasiloonida Soomaaliland